بسم الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي جعل الدنيا معبر اعتبار يحتاج ملاح سفينتها إلى عزم واصطبار، ولم يرضها لأوليائه فبنى لهم دارا غير هذه الدار، غير أنه زينها بالمال للمالك والنضار، فبينما هي في صعود الزيادة إذ صاحبها على القبر في انعدار. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أحمده سبحانه وتعالى عدد الرمل في القفار، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ ذكره مبلغ الليل والنهار، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان خصوصا المهاجرين والأنصار. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولا ليال إله بما تكلم سبحانه وتعالى نغسو كل مية حفلة بركيسا آن اسكو وإذا سنة إنه سان أكل فائدة سنة لهن وحين أنفعي لها الدنيا دي آخرة دبا. في نفس الوقتنا آن إسبرنا إنه دad كان هوري اسكو أقون سعادة السفير وجديدة إيو دadka kale xafladan wanaagsan إلهي baa maad iskale سبحانه وتعالى. muxaadaradeena maanta waxay ku saabsan tahay nabigeena calayhi الصلاaةu والسلام goortii uu ka hijrooday maka oo uu u hijrooday madiina, oo haddana aan ku jirno sanadkii hijriga jadiidka ahaa 1440 ayaan galnay. markii uu nebigu calayhi الصلاaةu wasalaam uu soo hijrooday oo uu maka intuu ka soo hijrooday madiine uu soo hijroonay oo uu doonayay inuu asaaso dowladdii islaamka ahayd oo uu ku asaasay madiino, oo markaa intishaartay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu barakeeyey oo caalamka daafihiisa gaadhay, oo maanta meel aysan waddan aysan joogin aysan jirin ilaa maalinkaa ilaa maanta diintii islaamka oo faaftay. laakiin asaaskeedu wuxuu ahaa hijradii nebiga calayhi الصلاaةu wasalaam. nebiga calayhi الصلاaةu wasalaam markuu usoo hijroonayay madiina, reer madiina waxay sugayeen muddo dheer ayaa waxay maqleen inuu nebigu iman doono. qorshahan usoo socdo waxa weeye abu yuusuf cabdullaahi bni salaam xibrulyahuud ayuu ahaa, markii dambena saxaabi jaliiluu noqday, ayaa wuxuu ka mid ahaa dadkii nebigeena calayhi الصلاaةu wasalaam ku soo istiqbaalay madiino imaanshaheeda. nebigu calayhi الصلاaةu wasalaam marka wuxuu yidhi waxaan imid iyadoo ay yahuuddii iyo muslimiintii ay kulligood maalin walba intay soo baxaan ay leeyihin nebigii baa soo socda, inta la soo baxo lama aragtay la noqon jiray isagoonan imaanin. maalin maalmaha ka mid a ayaa wiil yaroo yahuuda wuxuu arkay nebigii oo soo socda calayhi الصلاaةu wasalaam. markaasuu magaaladii ku cararo wuxuu yidhi aabbihiin aad sugayseen maantuu yimaaday, aniguna marka wuxuu dadkii madiine ka soo baxay oo markaa nebiga u yimid ayaan ahaa buu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh. kolkaasaan waxaa maqlay buu yidhi nebiga calayhi الصلاaةu wasalaam isagoo leh kelimaad, waa kelimaad cajiiba, waa kelimaadka aan u soconno inaan balcaawo wax yar kor istaagno. faa'iidada ay noo leeyihiin annaga, faa'iidada ay u leeyihiin ummadda, faa'iidada ay u leeyihiin marka dowlad la dhisayo. annaga waxaan nahay Soomaali haddaan nahay dowlad
burburtay oo hadda rabta inay soo kabato ta'siis baan ku jirnaa sidaa darteed Soomaali haddaan nahay waxa xadiidkaas uu sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam maalinkaana uu sheegay wuxuu asaas u yahay sida looga bixi lahaa dhibaatooyinka waxna loo asaasi lahaa wuxuu yiri waxa maqal nabigu oo dhahay calayhi salaatu wasalaam maalinkaa wey أول ما سمعت يقول يا أيها الناس دضوا افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام كلام يروي لكن وحكفت يا قواعد عجيبة وفي تأسيس الأمم مجتمعات كسينا أكل فرفور ملهين سي اسكو قبسانان لهايين سي او اهان لهاين مجتمعات هوري اسعوده او ديسن او هوري اسعوده لابد ان ارمها لهلوي نبي مركا او ليه وبدايه دخوله الى المدينه اول كلام وددكو امر يوي صلوات الله وسلام عليه مدينه مركا waxay tahay dad diintii fahmay way hadaba waxay doonayaan inay asaasaan dawlad islaami ayuu rabaa nabiga kaleey salaatu wasalaam mujtamac mutamaasik ah oo is haysta oo is anfaca oo ma aragtay ma taqaana adduunyada gaarsiiyo risaalada ay wadaan ayuu nabigu rabaa salawaatu allah wasalaamu calayh markii nabigu wuxuu calayhi salaatu ayuha nas dadow ifshu salaam salaanta faafiya السلام ما هو اسم الله تبارك وتعالى السلام اسم الله إلهي اسم كيسوي جل جلاله السلام اسم الله إلهي اسم كيسوي أو كان ناقص إلهي سبحانه وتعالى إن وحظ المية إن أمني وناك كل شيء بيده صلوات الله وسلامه عليه عز وجل وحو البق نبتأه وناك إلهي كعنتي كجران مركا اختيار النبي لاسم السلام وحو يهي أو اسم الله السلام ودورت إلا فافيو وحوي هدي نبتقليا وحول بأساسه dadku inay nabadgeliyaan ba asaas u ah qofku inuu dad kale ka nabadgalaa asaas u ah maadaama ay asaas u tahay Allah subhanahu wa ta'ala waxa aan ka doonaynay koowaad waa inuu salaam nasiya haddaan doonayno waa inaan magaciisa aan faafinaa assalaam dhaxdeena aan ku faafinaa assalaamu calaykum sababtu maxay tahay waxa ku soo arooray quraanka uu ku tusinayaa markaad ilaahi inaad wax warsatid rabtid waxaad warsanaysid wax u munaasib oo ismkiisa oo inaad ku warsataa salawaatu azza wa jalla suu nabigeena salawaatullaahi wasalaamu alayhi noo sheegay مثلا سيدنا أيوب دب أيا قبصدي وحو يري ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين سيدنا زكريا وحو يري ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين هذا وحو هذا أقول خير بدن إله أني كلي هاي جتجن كل أداء الدنيا دحل يسيده أنا واحد يسيبه سليمان مركو ربي إنه إلهي وحور صدو وحو يري ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب إلهي واحد إسيسا بقرتويو أنا قفك الأصوب بنين أنيقا مؤقية أديقا واحد بحسد وهاب هبو كربا وهاب وكود البضي وحان دونينو أو تأسيس الأمة إيو وناق وحو كبل وضان بتقليو إذن وحان إلهي كبرينا السلام اسمك إلهي السلام أيان نفافينينا سيان نبتقليو وهلنو السلام نبتقليو دوا محي مرك قفك مركو لي السلام عليكم محو كوضا كو waxa ugu wanaagsan ee uu qofku markuu khayr doonayo waa inuu wax wanaagsan ku hadlaa wax wanaag ka wanaagsan ma taqaana nabadgelyada oo asaas wax walba khayr iyada u ah wax ka wanaagsan ma jiro waa inaan marka hadaan doonayn inaan salaam aan asaasno waa inaan horta afkeena wax wanaagsan aan ku hadalno sidaas uu nabigu leeyahay ifshu salaama baynakum badiya wanaaga badiya nabadgelyada badiya inuu qof walbo anaga naga mid ka qaato siday nabadgelyo u asaasi lahayd waxa koow ka ah inuu horta nabadgelyo ka hadlo oo uu dhibka iyo balaayada jirta haday jirto uu ka hadlo waxa wanaagsan ee jira sababtoo ah hadaanan hadalkeena aanan hagaajinin oo aanan oraahdeen aan dhahayna ayna wanaagsanaanin hadda ilaahay wuxuu noola tacaamulay wixii anaga naga soo baxay waxaan ku hadlayno ilaahay noola tacaamulay hadaanan fiirinin waxyaalaha wanaagsan ee leenahay ee ummadeenu ay leedahay ee dadkeenu ay leeyihiin oo naanan badinin
ما بد سمايو ماشي حن هدان فيرينو أو أن ما أنتو دن حمان كهذلنو سلام كمان نهذلين عليت كي بان بدن علكي إيو وحان بدن إيو نبت قليا لأنتي إيو متقانا إيو نبكي ومده هستي أيان قيب كنقوني إذن وحانا سارا إنا نفافينو وحا وناكس إنا نفافينو أو أقوه الرئيس نبت قليا أقوه الرئيس افشوا السلام بينكم ما بيغرنيس هديو هذا الكيانو وناكسنادو وحا وناكسناني وحا نسوغينا وناكسناني هيدي ديلادنا بدنيس waxaa nugu dhex badanaya wixii fiicnaa baa nugu dhex badanaya haddaan laakiin maanta oo dhan xumaan ka hadalno oon xumaanteena aan maaragti ka waranno xumaantaasaa badanayso salafka saalix waxay dhaheen kaana asalafu yumiituuna albaatila bihujrihi wa yuxyuuna alxaqa bidikrihi waxa wanaagsan way ka hadli jireen si u bato waxa xunna way ka aamusi jireen ilaahay wuxuu leeyahay jalla jalaaluhu waqul licibaadii yaquulu allatii hiya axsan haddaabad wax dhahaysaan waxa wanaagsan kiisa ugu wanaagsan dhaha ummadaad wax ka soo aragtay waxaad ka waramaysaa wixii wanaagsan oo soo aragtay dadka qalbigooda khayr baa galaya ummadda khayr baa galaya waxa badanaya khayrkaas niyadooda ku dhacay xagga allana khayr baa ka iman doona laakiin haddii aad xumaanta ka waranto oo ma aragtay balaayada aad sheegto balaayaa imanaysa ma taqaanaa waan ka warnay hadda ka hor soomaalida intaysan dhibaatada ku dhicin hadal xun baa bilowday Soomaali waa laga qixi doonaa waxa la yiri maxamed siyaad bar wuxuu yiri wadan ma ogiyay dadka ma tagayo qaxooti baa la noqon doona sidii baa dhacday waa la cararay guriyihii baa la gaday qaxooti baa la isku wada shubay hadda waxaan maqlaynaa hadal fiican baa Soomaalida ka maqlaynaa hatta dadkii kale geerkeena ahaa waxay naga arkaan inay Soomaaliya ay hadda soo noqonayso waxaan marka filaynaa insha Allah ilaahina aan ka rajaynaynaa in uu khayr badan soo socdo Soomaalidana uu soo socdo nabadgelyo iyo nolol wanaagsan iyo barwaaqo iyo horumar laakiin waxa asaas u ah assalaam nabadgelyo oo asaas afkeenayna ku xiran tahay barigi horumarkii Soomaalida shir loo qabto Soomaali isku ma imanayso way kala tagayaan way kala cararayaan sidii ay dhici jirtay shir walba kala carar jiray laana waxay dadku maleynayaan waa asaas waxay ku hadlayaan waa asaas sida darteed ayaa adiga mustawa shakhsi iyo mustawa umma iyo mustawa mujtamac waxa loo baahan yahay inaan anagu ka wada shaqeyn inaan salaan iyo nabadgelyo iyo wax wanaagsan aan dadka faafino dadka niyadooda inaan dhisno wuuna jira wax lagu dhiso dadka dhab baa jirta khayr baa jira ma garanaysa ifshu salaama baynakum nabadgelyadii faafiyo nabiga kaleey salaatu wasalaam yiri qof walbo anaga naga meeda waxa loo baahan yahay inuu assalaam qaato sababtoo ah nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ما أفضل خصال الإسلام إسلام كأرجني خساشة هو ناكسن محيته بالنبي عليه الصلاة كما في السنن بل إسلام كو بلارن أنتو لقيه خساشة هو ناكسن حبنها هو ناكسن إسلام كيا رسول الله نوشك باليري وحيري إطعام الطعام دتك أو عنتلسيو لدجالن كجاجدا oo anagoo dhan aan isku gacmo qabsano sidii aan ula dagaalami lahayn dadka iyo ummaddu inaysan gaajo aysan ku dhicin oo adigu aad noqotid qof faacila fil mujtamac si uu dadka gaajada uga baxaan it'aamu at'aam wa waxay dhahan السلام الغذائي in uu nabadgelyadii cuntada la helo oo dadku uu qof walba faacil noqdo sidii looga bixi lahaa إطعام الطعام وإفشاء السلام أفضل خصال الإسلام نبينا عليه الصلاة والسلام خصال كإسلام كأقوى ناكسن أقوى سرية ولا بلاس ويرنبي على من عرفت وعلى من لم تعرف إن سلام كوحك إيمانا كوج يد هذا جودها إنه أتجلسد نبتجلي أتجلسد وتذكرنا أدو جلسد ومد هذا أدو جلسد قال مسلمين تعالم كجوجنا أدو جلسد قال هذا حتى أدنبت وجلسي أصو جل له الدين إله وخير وهي لهاين سلام إن لقاها لا لباهي افشوا السلام هدي قلبي قاعد وكبوحه غلي يحسد وحبا لربيد الآن تدك وكبوحه وحنقون إنسانين ما أركتي كقيب قاتي لبك ما أدوية كذا عياد كم نقون إنسان إلهي سبحانه وتعالى ينظر إلينا إلهي ونفيرنا يا مجيء سمفافينا سلام من وجرة سلامة الصدر إن تجدها سلام كته بلو باهي سلامة القول عرم كاجي إنه وناكسينها لو باهي وحفي عن كوهر لي متقان إن دهديد معها صومالي ملحون حكي له قلنا وابا بعده ما قرنيس
إن هذا متقانا أذيك لفترك على مستوى أذيك يرهرك يعرض هذه دمت هذا ها سومالي إسكورن والله مال حنا ماشان كشقيا وحوجا حنا واقعتا كحنا ضلنا واجرا واحد بوحين قربي وحفي عن هلي سامرك إله أذيك مستوى هذا سلام كهلين وناك هذا كهلين متقانا وربلوحي حما متقانا وحوجا يرى أندر يا أخي افشوا السلام بينكم نبت قليو إيو هذا الوناكسن إيو قلب في عن إيو هذا في عن أراه في عن إيو يدي في عن إن هذا الجلسة دوي كل كاس إله سبحانه وتعالى أذيقنا كبدليا وبداية بدايات الأمة تهدي نبي حسمين صلوات الله وسلامه عليه إله وتوليه جل جلاله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم قلوه هذا وحكو جرو سلام داخلي إن هرتس لقاه له عرب داخلي إن لقاه له وحو ناكسن إن لقاه له مركز إلهي سبحانه وتعالى يجن تغيير كيف بنانك وإيمان دونا من على مستوى الأفراد قف بينه سارنته قبله سارنته ويلشي سارنته رجع سارنته دمرك سارنته كو يربي سارنته كو وين سارنته قرينا وإنان وناك أن دتكينا برنا متقانا وإني متقانا دتك إعلامك إيو متقانا إيو سوشيال ميديا هدتك هذا إني وحو في عندك أجليهم إني يجبيان ما إني يدعو لسوا إني متقانا خير إلهي سبحانه وتعالى قعنت كوها يه إنه إلهي خير صوّده أو خير أن كسوه إنه أنا جانا أهل أن قلنا هاي بالله افشوا السلام بينكم إشارة قوية والنبي عليه الصلاة والسلام وكهر ليوم افشوا السلام مقرنيس marka hadaanan gudaheena aan salaam laga helin oo aanan anagu aanan yaani qof walba isaga uusan koow jeclaanin naftiisa koow dad baa naftooda xataa col ku ah naftiisu salaam ma qabo gudihiisa daakhili ma qabo wuxuu ku leeyahay anigu wallahi meeshan tago waa ku fashilmaa meeshan galana waa ma aragti waa waxba kamilo kama keenayo huwa adu nafsihi ifshi nafta waa jiranahay wuxuu ku leeyahay wuxuu aaminsan inuu jiran yahay cudur qabo لا تمارضوا فتمرضوا فتموتوا قاعدة وإلى قارن واحد حديث واي ها إسجريسينينا يدان جرنين ويدان دمانين قف بوحو آمين سيئ إنه بجرين هبا أو نيدي سوء وحو قلنا إنه عذر قبو وإناد كسرتا قداد وإناد نبتقلي إناد جلسة أو إنه إلهي سبحانه وتعالى عافمات كسينا طرق دي سنة أطرع سنتهاي إناد متقانا وحقب سنكرتو إناد أنه صومالنا وحقب سنكر وإناد إزقلنا أنه قدهنا إزقلنا فردا جماعات متقانا كوح إيو مقالة إيو ودن كأردن إيو ودن عالم كإناد جارسين السلام بالو باهي وبداية النبي صلى الله عليه وسلم مركز افشوا السلام بينكم افشوا السلام متقانا وأطعموا الطعام أيها النبي عليه الصلاة والسلام وحاد قودسان انتظر ذاتك قودي النبي عليه الصلاة والسلام إطعام الطعام وحي أباهنته وإشارة إلى الإنتاج إن أدوغ إنتاج سميس وأدنين فاعل نقطة مجتمع تكون نقطة سيدو مجتمع وقبح لها لباتة جاجة هيستو وإن تكفلنا ترير كاجة أدية وإن دداشت سيدي أد متقانا أد كسب حلال أدو سميسان له كدبنا أقول نقول لهاد نين غير كيس أنفعه أو أمده سأقبح لهاد لأن هدين لوايو أمن الغذائي وحا إيماني خوف با إيماني متقانا خوف مركو يمادنا أمني جبا بحي سلام كبا بحي مركز وإله وحلو ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة قرية داس مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله إله نعمون كيس كفر سي فأذاقها الله لباس الجوع وحي مد جاجات مد والخوف خوفها كحي لأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام وحليه وحلو باهن هي أن نقول نقول ضد منتجين أو فاعلين نيدين يدنا كحيرنته كمرنا كما بحيسو سلام داخلي إن لهلا جودها إن الداخل كهشت إن أظهر مرقب سنكرت إن كهشت وأرين ضروري ولا باهن تي أنا جو النبي عليه الصلاة والسلام أيا لجوري إمام السخاوي في كتاب الحديث المشتهر في الألسنة وكسر شيء وحون يري وشيء ثابت أيري إنما البلاء موكل بالمنطق يري بلده ودن بعرب كالله سارا حتى عرب كاجا أدوحهم كو هذا الشيء بلدي يرى أضاء ويارتوي
haddaad waddankaaga aad tiraadid waddan baaba'san oo xuman oo xun oo madax xun oo dad xun oo aad ka aaminsan tahay kuna dhawaaqaysid adigaa baladaas u soo yeeratay ka ugu horeeya ku dhacaysana waa adiga bilaa waddan iyo bilaa waxaa tahay bilaa hawiya sababtoo ah adaa ka shaqaysay إنما البلاء موكل بالموت وحنا أصل ويري حديث كي بخاري كوسا أرنين كي أضيق أجرنا النبي يقول يمدو يري يعني أضيق جرنا والنبي يقول يمدو يري طهورا إن شاء الله حمد باهيس الله كو عافيه يري مركز يري طهورا بحيته حما تفور أصابت شيخا كبير تريده إلى القبور وحمد أضيق أو أضيق كل عضي قبر جينيسا قلبتي بوالا آسنك بلدي سقى ويرتي إذن إنما البلاء موكل بالمنطق متقال وإن المركة آذن كهبلين أو آذن حمانة آذن كنقون ضد كفافيني آذن كمد نقون لب هدو دعو هدي مقالة حمان كجرتو هدي ضدكو اسكو كعسيهين دنك وناكسن كهذا وحفي عن باجرة وحفي عن كهذا حمانة أساسي زيادين هانا كمد نقون هكا قيب نقون ضد سلام ضد كشقي نقو ضد كحمانة كشقيها نقون إفش السلام إنما البلاء موكل بالمنطق منطقة أيام بلده بسوجي ذبه وأنا وحي كلين وحال شيء قواعد بدن أو أنا عادي لهم إمام ابن قيم سو شيء يا إمام السخاوي أدلة بدن وأنت ثابت كوه أو ضد أنت حمان كهذا لين حمان تينو كل عادي أياجرة أنا واحد حسوس تامر كان حمر الدكسي كده جنجرني يربانا لدي جنجري وحال ليه جري حسن بابور هو يديس وحال بابور سو بابور وكل حدا شيء بالي مركاسي أبحثي حسن بابور سيد الله مالك كده أنا أسول كسب بعني بابور كله جوي يدا بابور سيسي إيش حسن بابور ما أقول بحين يسبا ما حد أقول ده بدر يسبا بابورك أنا أقول أجد إنه ولا إله دوا حسوسته بابور لك وكله جوي مركا إذن أنا أقول إحنا لو جبنا ولا ليال مجتمع أن النبي يقول بداية وحكاها ليا أساس السلام وحواي إن جودهن وسلام يماذو إن هذا منطقة وسلام يماذو إن عندك منتجين أو وحقب سنة أو غير كذا أنفعية إن نقولنا ضد يجوا حصو صارية وإحنا جالسين يدك كلام ودن كذا أنفعية سوماليا أنت والله أمانة حقيقة مليارات بعد بدك كبحة ودن كي جلان يو سعودان إطعام الطعام ضد كذا يقودنا ووحوى ناكسن أو أنك جاء أمانة إنه غير كينا منطقنا وما ذا كلام مركب دبعته كذا عضو ويبربران ضد كويت لما جاجة ولا مالان سوماليا إلا هذا حوالي ضد مليارات كسمي وحي كسمي وامحد وضدك ضدكوda wax u diray waxay ku jiraan إطعام الطعام إفشاء السلام وإن كقيب قادنا إطعام الطعام وابو ku jirnay مليارات با kasoo baxa wadamada dibadda Mareykanka iyo Yurub iyo Khaliijka Soomaaliya galaan dadkaasi u socdaan qoysaska ku nool dad ba wax ku barta dad ba maaragtay cunto ku cuna dad ba ma taqaana ku nool waxaas oo dhan waxay ka mid tahay intaajka ka mid tahay waxbaan soo saarnay waxaanina dadkeeni baan gelinay waa tuu nabigu doonayay sallallahu alayhi wasallam waana wax ay Soomaalidu ku amaanan yihiin loo baahan yahay in la laban laabo la sii wado si uu dadka oo dhan aan u noqono xataa Soomaalidu inay dadka caalamka kale ay anfacdo إطعام الطعام إفشوا السلام يا أيها الناس إفشوا السلام ورنبت قليدة فافية وأنا قول نبأ يقول هذا النبي عامة الناس بقول هذا أنا قلنا له هذا قيب بان كنا قف والبو أنا جم إذا وحكنا عي ودن قيب بكيه أما قرال وقيب كجيه وحفي عنه القرآن وحب قرية متى قانان وحن أخري الشيخ محمد بن إلياس حديث النبي عليه الصلاة والسلام وير النبي عليه الصلاة والسلام رب كلمة يقولها الرجل لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا وحال غيابا كلمة قف إنه كل واقع أو سنبال وما عرفت كلمة سهلا وحما معنا لهين لكن تضبات تنسنأ جهنم أقصيبها ورب كلمة من رضا الله يلقيها رب كلمة يقولها الرجل في رضا الله لا يلقي لها بالا يلقى بها رضا الله تبارك وتعالى كلمة بالغيابا إنه كهضله أو إلهي بكجرها النقد كلمة ده كلية ما أنت إلهي واجب يالنك أنه رجع النقد نين جهنم وكسي جليا إمام محمد بن إلياس وحير هذه الكلمة وحوي ما تقانا ما كلمة أو عي أما كذا ما هو يري وكلمة دتك كلا فرق سي ضد اسكوميتة أو مجالات دكان أو قبل جوجا أما ودن جوجا كلمة كلا جيسي نينا اسكسو استاجا سياسي مركز لي هدان سانه ومدي مال أسي سعتي بها كلمة دي كلا تجيس
يلقي بها لا يلقي لها بالا يسقوا حسليه ددك كسبو يهوي بها في جهنم 70 خريفا سلامتي بو كساري ددك دبو كلمديسي اي كنتي وحو غاري انه ما اركتي جهنم 7 سنه وهوس اصيبه وحر waa kelimad waaye ma aha kelmad ay kelma in adigu iska kaftamaysa kelma ku hadash wuu wajahay wuxuu waa kelmad dadka kala geysay laan aayadaha ka horeeyay maxay ka hadlayaan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum ha yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh wa dadki hadalka fiican ku hadlayay ayaa wujuhdooda la nuurinaya dadki isku keeneen markay hadleen ba dadki qulubtooda isku soo dhawaatay mar qaarna markay hadlaan waa la sii kala fogaanaya waxay ka hadlayaan anagoo ree hebel ah anagoo kan ah baasaana la yeelaya wallahi allah ilaah qorihi baa la qaatay waa la kala yaacab mataqaana ورب كلمة يقولها الرجل لا يلقي لها بالا يرضى برضا الله وكلمة دتك سو جمع سبالي حافظي بي جمعسي متولدي بي جمعسي مقالدي بي جمعسي ودنكي بي اسكو كانتي دينع بي اوده توجيس كلمة داسنا الهي ردنيه سقفكو غاريا سيدا درتيد ايا هدلكو wax sahlan ma walaal وإنان سلام كشقينا بداية الدول بداية متقانا إصلاح وحكا إمانا يا أفكينون هجاجنون فيسبوك أسكسو جليسا كلمة اسكا ديجيسا ها متقانا مركاسا ضد بدن أي مارك كلا جيديسا متقانا وإناد نقطة عضو سلام كشقي ضدك اسكو كينا ما أنت ولبنا وحا خطر أي لا هي وسائل متقانا أرنتان سوشيال ميديا maxay waxay leedahay khatar weyn ay leedahay qofku waxa laga yaabaa markuu muxaadaro soo joogo inuu wixishooda laga yaabaa laakiin inuu Facebook soo dhigo ree hebel iyo magac kale inuu ku soo dhigo oo uu dad qabiila si kala geeyo umadana kala shaqeeyo wuxuu noqonayaa kelmad uu dadku kala fogeeyay oo ma taqaana umadii isku sii socotay uu kala fogeeyay ilaahay agtiisana waa laga xisaabin doonaa kelmadaas moona ka shaqeeynin assalaam ka muus shaqeyn qofkaas sida darteed waxa la rabaa qof walbo anaga naga mida fi bidaayati ta'siis mujtamac inaan mas'uuliyad qaadano oo salaan aan ka shaqeeyno waxaan qoraynaa ilaah baan arka ama Facebook gadaaljiisa joog ama ma taqaana WhatsApp gadaashiisa joog ama ma taqaana maxay ahayd YouTube ka hadal oo wax ku qor ilaahay wuu ku arkaa jalla jalaaluhu waxa isku daydaa inaad salaam ka shaqeysid ifshu salaama baynakum salaamul aql salaamul mu'taqad ma taqaana ma garanaysa ayaa loo baahan yahay muntijna inaan noqotid oo nin ما تقانا يسقوا وح أنفعها أنا يسقى ما تقانا واليد العليا خير من اليد السفلى يا النبي عليه الصلاة والسلام إن نقطيد أطعم الطعام إن لقيتيد سين أنا وضدكم أنفعها ومد سين ما ركتحو جارسيا وبناء المجتمعات بناء الدول تأسيس ما تقانا صون نقشة الدول ذا داعي إجابة يسقوا صون نقضاون إفشاء السلام وإطعام الطعام وصل الأرحام أرحامتي ننا حريرية لأنه ولا بندي أجوه الرئيس المجتمع نين كان أرحمتي سوف فعنين ومدنا ومفي عن صومالي ذو حتى هذا وحي أمش أفي عن با المهنة أفي عن نين كان أرحمتي الرحم من هو صومالي بدنا الرحم متقان ويسكو قلدان قرابة إيه الرحم كيسكو قلدان الرحم وحاواي ضدك أديك دحلا أدنى أدحشيد ضدك محرم كوء أدنى محرم كأدو تهي أبها هو يدا abtiga adeerka habaryarta eedada kow walaalka walaasha kuwan inaad xiriir fiican la leedahay noloshaada ku xiran tahay ma aha wax laga baryaay ma aday kugu xirantay kuwan ilaahi subhanahu wa ta'ala kuwa gooya dadkaas gooya ilaahi wuxuu ku tilmaamay quraanka laba meel ayuu lacnad ilaahi ku soo dejiyay فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم إن أرحامتي نكويسان أولئك الذين لعنهم الله إلهي باللعنة لأن لعنة كل عاد إلهنا خير لك سوق معي الدنيا آخر مدنا لك سوق معي صلة الأرحام ما قرنيس لأن مجتمع هدوسا أرحامتي سوق حرنين مجتمع متقاطع وبداية النبي وكهر لا متقان هدي متماسك أهين أو أبيه هو يدي أذركي أبتجي ولا شيء ولا لك أيسن حرير استكافل أيسن لهين مجتمع لانتوا أو بابا أيوة خير لما جمسوا جاي إنه أمضى أوكيانو متقان وحكود دليله آيات ده متقانا أو آياتها أو دحلك مركو إلهي كور رماي كهر أيو يري محو يروحوا إلى الله سبحانه وتعالى
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوه منه وقولوا لهم قولا معروفا أولو القربى مركا وادتك دحلك آن لهين وقرابدي كلا أها هذه مادام وحبا لغا سينيا لكن دحل يقول ماله قرابة مركا قرابة هذه قرابة لغا وضو كوان لغا وضو قرابة دي بوا إيجا محا وح لوغا سي يجا دحل كسكله إذن مركا دحل كلوجي ودتك دحل كسكله كواس واس الرحم ليسوا قرابة وإذا حضر القسمة أولو القربى هذا دحلك أبي هو يدي قرابة أين أدري أبتدي قرابة هين بس يوح لقى سينا يجاب دحلك ولالكي ولاش دحلك كله إذا مرش الوجه ذو وحوي دت كواي دت كاس حريرين تودا كورهين تودا محي إهتو إناد ما تقانا آد حريري سوا أرين مجتمعنا أوفي عن أدينا نكوفي عن وحو وآت محيط ما هو أدي لقى برايمة أدي هو حر دار بتين سماء هدار أدي كجرتا سببته أو حاكو حرا إلهي وحيري رحمك أيا أوسو أشتكو دي مركي إلهي خلقك أبوري مركاز يري يا رحم ألا يرضيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ميونك رالي قلنا الرحمة قفكي كوغوي إنا نقوي إله بقوينا جل جلاله قفكي كحرين عن حريريو إذن وحي تابش كل هذا نولش هذا معلومات يقول نبي يقول من أحب ننكي جعليسته هذا يقول جرتا أن ينسأ له في أجله ويبارك له في عمره فليصل رحمه ننكي دونيا إن عمره سنة الله داريو أجل كي سنة حياة برزقه سنة الله بركيه رحمك على حريري هذا يقول جرتا إذن وحي كتابنيسا هذا كتابنيسا إن هو يدا إي أباها قويسد walaalka ay walaasha adan ka lahayn adeerka ay abtiga aadan xiriir la lahayn doonaysidna inaad hore u kacdid ha ka yaabin adeerka ima soo xiriirin adeerka adiga ilaahay ku amray inaad xiriirisid abtiga adu ilaahay ku amray inaad xiriirisid abti waa hooyo aan naas lahayn bay dhahan Soomaalidu laanu min arrahim waay ammiga nabigu wuxuu al-ammu sinul abi abaha mithligiisa waay هذا أدي أدرك أباه أدرك أكل جوسنتين أو حرير أيضا لهن أو ما تقانا بلاي إذن تحت الله إذن قاطع رحمته هاكو حريري يوك حريرين إسجى جرتا إسجى هدوك جويو هذه جوحة نبي يقول عليه ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطع وصل نينك مركي لحريريان حريرية تلفون كوجودا سلام كوجودا درس زيارة كوجودا كاز ومكافئ ليس بواصل واصل متيد أجو واصل وحواي مركل وجوية إن أتحريرسد هؤلاء الجماعة القريبين لك هكو وحير وانا كوكو سمايان أديك حرير توصي نولش هذا تابنيسا رزقي جاي تابنيسا عمري جاي تابنيسا هذا دوني سد أديك ضدك حريري لحظة كور هاي جويان يكو جوينين بداية تأسيس المجتمع رحمك كواس واي محرمك واي صفة جاري ليهن أو قرابة كل ليهن إن أدرت وجورسن كرتا وقرابة واي لكن محرم كاجا ما يعني الأقرب فالأقرب حرير لين لكن دت كان والرحم ليسوا بقرابة إنما هم أرحام ولاشا ولالكا أبتيجا أدركا إددا هبريرتا أبيه هو يكو يجاكا كوا دت كاز جوينا وحواي نبي يقول عليه الصلاة والسلام دونيسان إن أطرق كعضان بداية التأسيس سلوا الأرحام والأرحام تنحريرية يعني لأن هذا ينفعكم مجتمع ما يشوك باللابنا أيوة مجتمع متماسك أو اسكور هاي أو اسكو حرا أو متقانا وناكسا أو متقانا هرق وكع دون يوي مقرنيس وصلوا الأرحام نبي عليه الصلاة والسلام يري وصلوا بالليل والناس نيام وصلوا بالليل والناس نيام بحيثها معناها اللوجيا ذا ونبي بداية محا الليل كإيو محا اسكو كاني هي بداية تأسيس الدول متقانا لبا أرين بوحدين علماء دوالا قوى الرميان أرين تكواد وحواي أعماشا آن إذين شيء خير كآت ودان وحي أبهيني وح إلالية أعماشا نوافشة كده دالة لأن وحول بعليين وح حريرية ضدك وأكادي سيد قرابة وكله وأكادي سيد رحمك وكله جيرانك كمده كواس إلا حريريو أو لجور هيو ومتقانا ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وحان أملي يري
jibriil suu ila dardaarmayay maxay aheeto jiiraanka iyo dariska waxaan u maleeyay inuu isdhaxli doonaan oo raximka inay soo galeen qaraabo ma raxim inay soo galayaan baan u maleeyay dhaxalba inay soo gali doonaan oo arxam ay noqon doonaan dadka jiiraanka ah dadka magaalada dadka gobolka dadka wadanka yani in aan noqono maxay aheeto inaan sallu bil layli wan nasu niyam waxa way salaada leylka ah waa salaad naafila ah laakiin sir weyn bay leedahay ishaarana waxay u tahay nawaafishana inaan ku dadaalno markaan irimaha soo nawaafil al-sila nawaafil al-mataqana salah nawaafil az-zakah zakada waxyaalaha sunanta ah salaada sunanteeda maxay ahayd zakada sunanteeda inaan ku dadaalno ishaaro weeyaa leeyahay oo si waxyaalaha waaweyn idinku ilaashamaan waa inaad samaysaan waxyaalaha sunanta waa inaad ku fiicnaataan ninkiisa sunantiisu ay fiican tahay faradkiisu waa fiican yahay ninkii sadaqa badan ee sadaqadiisu ay badan tahay zakadiisuna way weyn tahay zakadiisuna waa nin zakada aanan ku harin way laakiin ninkaan sadaqaba lahayn oo sadaqada naafilta aan lahayn zakana ninkaas uu bixi way adag tahay mataqaana idan meesha waxay dhaheen nabigu wuxuu leeyahay acmaasha oo nawaafisha ah waa inaad ka war haysaan koow ishaaro weyli ishaarada labaad طبعا sida saxda sida koow waxa way inaan salaad leelka lagu dadaalo taas waa iyada waa nas way nasna waa salaatu leelka in lagu dadaalo si aad rabtaan inaad salaam ku noolaataan oo jannada gashaan qiyaamul leelkana tukado nabiga kaleey salaatu salaam sheekh Xamud iyo hadii ma ishaaraadka iyo ma ogola iyaga waxa laga bixinayo fawaa'id ka baxay ma ogola waa jaamidiin waa dadka maxay sida say tahay oo aan ku waday marka waxa way mafaahiimta laga fahmayo waxa kamid ah qiyaamul leelka tudaalo wali laakiin fahamka laga fahmayo waxa kamid ah waxa kamid ah wasallu bil layli wan nasu niyam arin way koow in arimaha sunanta ana lagu dadaalo labo qaar waxay dhaheen may waxa uu nabigu u jeedaa ikhlaaska salaatu leyl waa akhlasu salaatin way baynaka wa bayna rabbi qofku ogna male qofku jeedo ilaahay ahayna male mataqaana marka qofka salaatu leelka tukado waa mukhlis lillah tabaaraka ta'ala idan salaanta aafaafineysaan wanaaga aad dadka ka dhex shaqeyneysaan idcaamka aad idcaaminaysaan mataqaana waxa soo raximka aad xiriirineysaan ilaahi dartii u sameeyo wax kale ha u sameeynina ilaahi markaas waxa siinaya laana salaatu leyl wa salaatu al-ikhlas salaad gaar ah oo ikhlas oo ilaahi iyo adigeedi ka dhaxaysa salaadaha faradka maanta maal masaajidka lagu arkaya la qiyaamul leyl yaa tukada anaga yaa yaqaan ilaahi isaga baa soo intaan hadda meesh fadhida ninkii salaatu leyl tukada ilaahi baa og laana waa ikhlas sida darteedu nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu leeyahay war waxaad noqotaan dad mukhlisiina oo waxa aad qabanaysaan oo ummadiina aad u qabanaysaan oo aad wanaaga aad ka shaqeynaysaan qofna ha kaga rajeenin inuu idinka abaal mariyo ama amaan idin siiyo ama uu mataqaana meel idin ku soo qoro ama uu Facebook iyo YouTube idin ka sheego ilaahay dartiis u qabta salaanta aad ka shaqeynaysaan oo aad ummadda aad u dadaalaysaan say nabadgelyo u heli lahayd nabadgelyo ay u heli lahayd oo ummadan ay hore ugu dhaqaaqi lahayd ee horumar ay u heli lahayd waxaad u sameeysan ilaahay dartiis ha u sameeynina wax kale taasa ilaahay idinku abaal marin doona yawm al-qiyaama taasa meel feer ku gaari doontaan taasa thimaarteeda adduunyada lagu arkaya aakhirana ilaahay subhanahu wa ta'ala ku sameeyay wuxuu soo naqli imaam al-Ghazali rahimahullah fi kitab al-ihya wuxuu yiri nabiyada kamida ayaa waxa dhacday buu yiri wuxuu yiri ilaahay baa wuxuu amray inuu markuu gurigiisa ka soo baxo uu waxa ka soo horbaxo uu cuno wax walba ka soo horbaxo cun baa la yiri gurigiisa markuu ka soo baxay buu buur arkay buur hortiisa taagan waaya nabiga ilaahayna amar buu si buurta cun amar ilaahay waay waxayd xaytay si buurta u cuno markuu xaytay cun isiri buurti ma bataalaba meesha waaya nabiga haddana wuxuu yiri subaxii dambu soo kacay ilaahay wuxuu yiri maanta wixii ka soo horbaxa aas dhulka ku aas markuu gurigiisa ka soo baxay ayaa waxa ka soo horbaxay qitca weyn oo qurux badan oo dahab ka soo horbaxday qurux badan oo dahab inta la eg
ذهب كيبو قاضي وقد درب وقضي وآسي مركو آسكي دميو وكفت فخروسي بهدنا بنانكي أسو بودي بنانكي أسو بحد هدنا وآسي هدنا بنانكي أسو بحد وآسكي رواي مركز إلهي ويدي يا ربي لبا أمر أمرتوي لبا ضبيابي ليهن صبحي هور waxay amartay inaan buur cuno buurtii kolkaan isircuna waaba waayba wuxuu yiri ya nabiy allah tilka awaamirteedu waa saas hadaad azmi la timaadid oo inaad samaysid aad doontid ana ku sahlayo yiri go'aan hadaa gaadhi oo maanta tiraadid saasaan qabanaya ilaahay garabkaagu ku jira ilaahayna waa ku sahlaya laakiin in azmi laga helaa iyo laakiin hadaa tiraadid ani ma qaban karo wax aniga wax ma ihi anagu soo yaani Soomaali ma hadda soo celin karnaa dawladnimadeeda maxaan nahay وأقول دماتي إلهي نكو قرب استاجي معي لأن أديك بالله مهني أوامرتي إلهي مركو إلهي وحكو أمره وحا ليس ما أنت مركا ترادين محيط حجك واحد بدن وكذا لكن هذا عزم سميسد وتراد سنة كان واحد جينا يا إله كوس هلا أركيسا أوامر الله مركو هري وأذكتها ليس وحبور لك قرآن كحفظي وحا ليس قرآن لن يحفظين كرو لا إله إلا الله هذا قرآن قارت مدير أو قرآن كحفظ أركيسا ما قرانيس marka waa in azmina laga helaa wixii aan soo damacnay inaan qabanno azmiguna waxay dhaan culimadu ulul himmati ismullahi al-a'zam qofka himmad sare leh waaba ismullahi al-a'zam ismiga a'zam uu sheegay waaba himma in laga helo ila waa sidoo xadiidku sheegay horay markaad niyeysatid himmada la timaadid ilaahayna garabkaagu taagan waaba waxa doonayso gaartaad arkaysaa ulul himmati ismullahi al-a'zam haddaan laakiin ummadda himmadeeda dilno oon ila ummad Soomaali wax ma qaban karno waana la kala qaybsaday gobolaana laga kala dhigtay ma taqaana waa baabaanay baabaayna anagi baab isbaabiinay maxaa ilaahan ka sugnaa laakiin haddaan iraano naqdir nahnu wadankeena soo ceshano inaan ma taqaana aan ummadda Afrika aan anagu anfacno ma aha in anaga la anfaco inaan anagu aan nabad wadamada keeno anaguna aan mid noqono hal mid oo hal meel u jeedo ilaahay jalla jalaaluhu yakun macak taqaana midii hore saasay aheedu yiri midda labaad وحوري هذه أوامري هذا أوامرتي إذا مركز قوان قادد أنا كوس هلا يجري بورتي أد استرعون وكبح هذا ماشي طلبات وحوري وحي أهد واحد إخلاص وسميسي أدقو قريسي أنا جاب بنانك صور يجري هذا العمل المخلص نك عمل مخلص سميه إله بنانك صور يجري نين وحو يسقي إله وده حيس دتكو نبأ أمانة والله أني كان في عوي ورمحي أركيني كان ما بقى إذا أنا أرجع ورماء إلهي يسقى يسوق dadka dhexdiisa ilaahay u dhigaya wanaag amalka uu qofku sir u sameeyo anigana banaankan soo dhigaya buu yiri ana banaanka soo dhigay oo dadkan wanaag u dhex dhigaya oo ummadii baa jeclaanaysa oo aniga ma taqaana isagu uu qariyay ana banaan laakiin haduu dadka istustuso ilaahay subhanahu wa ta'ala waa ka qarinaya wixii oo dhan sallu bil layli wan naas niyam ishara ila war waxa qabanaysaan oo aad u qabanaysaan ummadan oo aad u qabanaysay reerkaaga aad u qabanaysay ilmahaaga oo ilaahay darti u qabo وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام مرك جنة وحات كو جليسان نبتقل جنة كو انت هذا جلين أسان سحد هذا الدنيا كو هليسا نولل دجن أو وناكسن أمد وناكسن وإسجعل أمد إسكو حران أمد إسودتا أمد متقانا خير وصودتك أوهر سيدا يا إلهي دنجلنا يا كنت من الجنة إلهي يودنجلنا حديث كاس وحديث مهم أنا جنا وأدب نوتها يا وأنا أباهنا أنا جمد والبو أنا جنا جمدها جاليدين يودنك الصومالي انت هدا باركتي دغيسانيسي انت نمقلي دونتا هدي ميلهاس اركتي لغليو وان نقنا افشو السلام نبدغلي ان كشقينا غدهينا قلبينا وان نبدغلي غلينا نولشينا iyo dadkeena u gelina hadal wanaagsan oo dadka hore u kaciyana aan ka shaqeynaa kelmad dadka isku keenta ee aan kala geynin ma taqaana fadhi ku dirirka markaad aad ka hadashid hadaad maxaway aad waxay noqonaysaa inaad nin ma taqaana aad wax kala geey inaad noqotid dadkii xataa isku meel ku wada shaahi jiray inay kala tagaan bay noqonaysaa sidaa darteed ay waxa loo baahan yahay salaam inaan ka shaqeyno dad wax muntijiinana aan noqono oo dadkooda iyo ummadooda iyagaba is anfacaan noqono geerkoodana wax gaarsiye aan noqono inaan usrooyin isku xiran oo is xiriirisa oo qaraabadooda raximtooda ku xiran aan noqono si ay ummaddu ay u wanaagtanaato ayaa loo baahan yahay لأن أرمهاس وأرمى أنا جنا تابني مركز أن وحنجلنا نولل رسمي أو وناكسن وجنة الدنيا قبل الجنة الآخرة جنة الآخرة تي آخرة أنت لجارين وحيد أرمها سبب أيهين نولل شيء الدنيا كلمة دي أنت سان كسو جبينا يا
waqtigaan fiirsanayay mar walbana waa ii dhan yahay hal daqiiqaan ku darsaday daqiiqadaasna waa iga raali noqonaysaan marka maxay ahaato arrimahaas lagu dadaalo ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu naga dhigo dadka kelmaadka anfaca kuna maaragtay ku intifaaca oo iyaga qeyrkoodana gaarsiiya والله سبحانه وتعالى أعلم إلهي جمعنا جمع مرحومة الله كديقو تفرقنا من بعد تفرقا معصوما الله كديقو وحي جرن إلها عافية وحي مراد لمراد كود الله سهله وحي وحكد مين إلها ودميو ومد صومال ميلو جوكت الله بركيو ومد مسلمين تميلو جوغان الله بركيو والله سبحانه وتعالى أعلم